السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني فيديوغان waxa uu talagalay waa mid ku saabsan xiriirka hadii aad ciwaanka aragtay waxaan huwa 100% inaad qalbi jab la soo kulantay ama qalbi jab aad ku jirtid xiriirku waa wajiye badan yahay mar farxad buu leeyahay marna xanaaq buu leeyahay marna murugo ayuu leeyahay waxaana taas sababaysa fikradaha aynu aaminsanahay marka aad fikrad qaldan aaminsan tahay xiriirkaagu sida uu ku hagaago way adkaanaysaa tusaale ahaan xiriirka waxa uu dhaxmanaa rag iyo dumar ragu waa dab dumarkuna waa dabeel dabeeshu marka ay dab aragto dabkaasi waa ifaya dabeeshaasi haday xoog badan tahay dabkaasi aad buu u ifaya hadaysa xoog badneen dabkaasi wuu damayaa dabkaasi haddii su'aalo badan yahay dabeeshaasi waxay noqonaysaa mid iyaduna xoog badan hadduu dabkaasi su'aalo yar yahay oo aan tusaalaha u soo qaatay ragga waxa dhacaysa dabeeshaana inay danto dabkuna uu damo isfahanka labada qof sidoo uu dabku uu ku shidnaado dabeeshuna ay ku joogto waxa ay ku xiran tahay labada qof fikradaha aynu aaminsanahay badana ama aynu ku soo kornay hadii aan kula wadaago raggu waxay aaminsan yihiin dumarka cidda ay lagdagaan Soomaalida waxay tiraahdaa doqon iyo dumar cidda ay lagdaan kama kacaan dumarku waa caruur caga waaweyn bay Soomaalidu tiraahdaa waa fikradaha qaldan ay raggu aaminsan yihiin dumarkuna waxay aaminsan yihiin raggu waa xaasidiin abaalna ma leh marka aad qof xiriir la sameynaysid uu ka aaminsan yahay inaad abaal lahayn way adagtahay sida aad ku fahantid marka aad qofkan kale oo xiriir ku la sameynaysid uu aaminsan yahay inaad adigu hadaad dhibaato u geysatid aad ka kacaynin way adagtahay sida aad isku fahantaan waa meesha aan sheegay dabka iyo dabeesha isfahanku wuxuu yimaadaa marka labada qof ay isku wadahayaan laakiin qof walba maskaxdiisa hadii uu ka socdo waxa iimaanaysa in laba jiho la kala qaado badanaane marka aynu caawin xiriirka marka uu naga xumaado caawin waxa aan weydiisanaa dadka fikrado kala qaldan haysta waxa laga yaabaa gabadha maanta marka xiriir xun dareemayso qofku ugu dhow ay su'aal weydiisa ama ay rata inay ku nafisto waxa laga yaabaa hadal fudud inuu ku yiraahdo uusan xataa dhageysanin dhibkeeda wiilka sidoo kale waxa laga yaabaa marka uu saaxiibkiis u tagay yiraahdo arintaas ay haysata waxa laga yaabaa si fudud inuu yiraahdo saas samee asigu ma samee karo way qalbigiisa qof baa degan iyadu saas samee marka lagu yiraahdo ma samee karto way qalbigiisa qof baa degan laakiin labada qof qalbiyadooda way degeen laakiin isfahankoodii baa yar isfahankuna wuxuu iimaanayaa maskaxdu marka ay isku si u shaqeynayso laakiin maskaxdaadu haday dhan qaldan u shaqeynayso qofka kalena dhan kala qaldan u shaqeynayso isfahankiina uu yaraanayaa wana sababta keenta mar walba buuq inuu jiro waxa kale oo buuqa keenaya wada hadalkan mar walba la wada hadlayo way labada qof waa inay isku soo xiisi karaan hadaad maanta dhan maalinta oo dhan qad isku jirtaan habeenkiina qad isku jirtaan aa wada hadlaysaan waxa meesha ka dhimanaya xiisi waxa meesha ka dhimanaya isfahanka xataa waxa laga yaabaa qofka isugu soo ku yiri inta yar aad sugaysid waa u baahan tahay inaad dhibsatid inaad su'aalo badan weydiisid maxaa qabanaysa maxay ahaayeen su'aalahaasina waxay carqaladeynayaan xiriirkiina waxa laga yaabaa su'aalahaas marka aad weydiinaysid si jacayl ku jira inaad u weydiinaysid inaad gubanaysid laakiin asiga qofka ama haweeney ha ahaato ama rag ha ahaado inuu su'aalahaas fududeysto oo isiraado waxba xitaa hadaa waqti samaysataan waxa dhacaysa in waqtigaas ayaa soo waceynaa ama haween ha ahaato ama maalin ha ahaato xilligaas markii la gaaro maskaxdu waxay soo siisinaysaa hormoonka farxadda qofkaaga adoo farxsan baa wacday intii lisa isla sheekaysanaysaan waa isla fahmaysaan wax walba aad doonaysaan laakiin mar walba hadaa qadka isku jirtaan waxa dhahaysa xiisaha ayaa ka dhacaya xiriirkaaga hadaa ratid inuu ku hagaago qofna ha ka wareysanin adigu ku dadaal qofkaani xiriir baa idinka dhaxeeya sidee u wanaajin kartaa sidee xiriirkaaga mar hadaaba ku fikiraysa xiriir waa inaad ku fikiri kartaa inaad mas'uuliyad qaadi kartid
maaha inaad qof kale la kaashatid qofka aad la shakaashanaysid waa inaad ka fikirtaa qofka uu yahay waa inaad weydii kartaa su'aalo marka hore weydii hadduu su'aalahaasi si sax kaaga jawaabo waa qof u soo jeego inuu ku caawiyo laakiin qof waxaa laga yaabaa marka aad su'aasha weydiinaysid maskaxdiisa maqan tahay oo si fudud hadal iskaga yiraahdo adiguna hadalkaasi waxaa laga yaabaa inuu hadal xun yahay laakiin aad dhiirgelin u qaadato is adkaysid qofkaagana uu ku jilicsan yahay oo kaa sugaya inaad adigu raali gelisid ama asiga uu ku raali geliyo isfahamku waa waxa ugu wanaagsan haddii aydan isfahmi karin xataa hal wada wada fuula wadadaasi saa u wada saarantiin marka dambaba isfahanka iyada imaanaysa assalaamu calaykum